qalbi dumar haddii ay xagatin gaarto waa ay adag tahay sida ay uga soo kabato culayska nafteeda ku yimid. Dumarkeenna nolosheenna dhabta haddii ay ogaadaan nagama tagaan si annagu waanu bannaynaa booska aynu u joogno. Maanta waxaan idiin hayaa sheeko la magac ah qalanjadii shalay laga cararay ee maanta noqotay dheemankii ahaa Rabbowitus. والله إلهي عافمد إبوي لكن كوا بدل بلو فيرمي عافمد كي إنسان كويلا. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee channelkeena fadlan subscribe saar gambaleelkana rukumo si aad ula socoto muuqaalada iyo sheekooyinka aynu halkan soo gelino. ladan maxamuud axmed waa gabadhii ku dhibaataysneed magaalada Qardho si mugle ayay u soo caawiyeen walaalaheena Soomaaliyeed ajar Rabbi ha ka siiye. ladan dhibaatooyin badan ayaa la soo darsay nolosheeda tiro 3 jeer ayay soo guursatay. markii ay guursanaysay rajadeedu waxa ay ahayd xanuun Rabbi waa halkiisa farxad waad helaysaa si laakiin may dhicin. mid kasta oo ay nolosheeda u dhiibtay jirhooyinka haya markii uu arko waa uu ka dhaqaaqayay. nolosha farxad ma aysan ku dareemin haddii aad adigu farxad ku joogto ama wareerayn ay noloshaadu dareemayso iyadoo ciil iyo caro ayay walaal ahayd. ladan dhibka intiisa ugu badan waxa uu uga imaanayay qaybo ka mid ah familkeeda. nabaro iyo hadallo urkutaalla ah ayaa qalbigeeda lagu reebay. ladan ma aysan helin walaal ama qof ku garab istaaga in ay iyadu farxad hesho. nolosha kale ayay ku noqotay dhibaato iyo ciriiri badan ayay dareentay. muhiimadda ladan waxa ay ahayd in ay hesho qof nolosheeda fahmaya. dhibka iyada haystana qof walba oo ay la kulanto waa ay u bandhigaysay. kani waa muuqaalkii ugu horreeyay ee laga duubay ladan. waxa ay nala wadaagaysaa xaaladaha ay soo martay iyo waxyaabaha ay la kulantay. waxaan aan qofta kaliya maalin 3 dhacda ilaa ilaahay intuu qoray maahan. alxamdulillaah dunida waan ku samaysanahay imtixaanka ilaahay uu keenay waa ilaahay caafimaad ima waayo. والله إلهي عافمد إبوي لكن كوا بدل بلو فيرمي عافمدكي إنسان كويلا. waxaan iga codsanaya 3 kuul baan soo maray noloshayda mid walba waxa uu bandhigay xaalad aan ku jiro mid walba ii soo dhaweeyay inta ay guursan way ugu yiraahdeen laakiin maalinta noloshayda gudaha u galay waxay igu noqotay noloshayda caqabad markaan sugayay farxad markaan sugayay garab istaag 12 sano noloshayda ka mid maanta 12 sano ilaa ay maanta noloshayda farxad ma arag taqarada madaxa ay ku yaala waxa ay geystay oo jirtay oo xarnada maanta aan dhacay geystay wada familkay ka mid الحمد لله إلهي بقى يقرأ إلهي هو يقرأ إني يعني كرتو إلهي يقرأ إني مسلم كرتو لكن قلت لك الله أصوف فريستا أنا بقى إن إلهي قبل دايرته وي إن إلهي وجهي كذا ساسوي وجه قرب بلاه ما ترى والله مصحبة ترى اللي أنت يبدأ زمان وإن قلبي يكدأ إسا وحلا جاي بقى كوا إلهم بقى إني هذي كيف راح تصح هذا أنا ولا أنا ما كسر هذا واي ما أنت كلب أدوني وين بونتي وين أنكين إنكم قطمايتو سكر بالانول يكر بالانول نيرفال كاي قصاص أول بعدين نبدأ بصوص الرعاية حبض باقي أنت أي قد عبي هل حبض باقي هل كذا القصار ladan ilaa xilligan walaalaheeda Soomaaliyeed ayaa si qurux badan u soo caawinaya. waxa ay dareemaysaa in ay haysato walaalo Soomaaliyeed oo ku garab taagan sidii ay rajada nolosheeda ku wanaagsanaan lahayd. ladan weli waxaa ku dambeeya xusuusaha ku dahaaran qalbigeeda. wayna adag tahay sida aad ku ilowdo ciriiri badan oo qalbigaagu uu dareemo. ha yeeshee nolosheedu waa ay isbedeshay. lacaga badan ayaa la gaarsiiyey. guri ay iyadu leedahay ayaa dhismihiisu socdaa. qalanjadii shalay laga cararayay maanta waa la daba cararayaa. wicitaano badan ayaa soo gaaraya. taleefano badan ayaa uga imaanaya dad danta iyo duruufaha hore ugu nacay. ha yeeshee maanta aysan u baahnayn